kulanti wacan daawadayaal waxaan idin soo gudbinayaa waa maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Meelaha qaar wadamada Carabta khilaaf ayaa hadda ka dhashay oo waxaa la isku khilaafay in maalinta Sabtida ama Axadda ay noqon doonto maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Aynu eegno wadankaasi Qatar saynisyahanada dhinaca falaga ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen in maalinta Sabtida oo ku beegan 2 bisha Abriil sanadkan 2022 inay tahay maalinta ay rumaysan yihiin in ay dhalato bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan. Waxaana maalinta Jumcada oo 1 bisha Abriil ay ku dhawaaqday in loo baahan yahay in la baadigoobo bisha barakeysan ee Ramadaan. 29 ayay ku beegan tahay bisha Shacbaan maalintaasi Jumcada ah. Qaraarkaasi sharciga ayaa waxaa la tilmaamay in ay dowladda dalkaasi Qatar ay soo saartay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalkaasi, waxaana guddi loo saaray ayaa la yiri in la baadigoobo bisha dhalashadeedii. Injineer Faysal Al Ansari oo agaasimaha fulinta ee Majmaca Sheekh Cabdul Ansari ayaa waxa uu sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkani ay dhalan doonto yiri maalinta Jumcada ah amaba ay ku beegan tahay in la arko maalinta Jumcada ah bacda al-Maghrib. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay sugayaan amaba iyagu ay filayaan in maalinta koowaad ee Ramadaan ay noqoto maalinta Sabtida ah. Dowladda dalka Sacuudi Carabiya waxa ay dhankeedii ay sheegtay in ay gelinka dambe maalinta Jumcada si aad loo baadigoobi doono bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxkamadda sare ee dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay shaacay ka qaaday in ay dadka arka bisha barakeysan ee Ramadaan ay tegi karaan maxkamadda ugu dhow si halkaasi loogu dhaariyo ama ay xiriir ay la soo sameeyaan maxkamadaha kale ee ku yaala magaalooyinka ay ka arkaan. Maxkamadda sare ee Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay ugu baaqday dhammaan muslimiinta caalamka ha joogaan boqortooyada iyo meelo ka baxsanba in gelinka dambe maalinta Jumcada oo ku beegan 29 Shacbaan ee ku aasaysan 1 bisha Abriil ee 2022 in la baadigoobo bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan, sida ay xusay wakaaladda wararka Sacuudi Carabiya ee Wasa. Bayaanka maxkamadda ayaa waxa uu qornaa: waxaan ka doonaynaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan boqortooyada Sacuudi Carabiya in la isku xil saaro maalinta Jumcada ah gelinkeedii dambe in la raadiyo bisha barakeysan ee Ramadaan bilashadeedii. Haddii la waayo waxay ka dhignaan doontaa in maalinta Sabtida la kaamil yeeli doono ama la dhammaystiri doono bisha Shacbaan, sidaasna ay ku noqon doonto maalinta koowaad ee Ramadaan maalinta Axadda ee toddobaadka soo socda insha Allah. Maxkamadda ayaa waxa ay tilmaantay in dadaal dheeraad lagu bixin doono oo ay dowladda Sacuudiga dadaal ay ku bixin doonto baadigoobka bisha barakeysan ee Ramadaan. Diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca iyo guddi ayaa loo xil saaray baadigoobka bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixinada kale ee warbaahinta arrimahaasi ay ka qoreen haddii aynu fiirino, wasaaradaha arrimaha awqaafta iyo diinta ee wadamada khaliijka ayaa inta badanba waxa ay iyagu yihiin kuwo isku xil saaray guddina u magacaabay in maalinta Jumcada ah la baadigoobo bisha barakeysan ee Ramadaan. Kooxaha iyagu saynisyahanada falaga la yiraahdo ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin in maalinta Sabtida ama Axadda labadood mid uun ay noqon doonto in ay noqoto bisha barakeysan ee Ramadaan. Xarunta falaga caalamiga ah ee dalkaasi Jordan ayaa war ay soo saareen waxa ay shaacay kaga qaadeen in maalinta Axadda ay rumaysan yihiin inay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Agaasimaha xaruntaasi Injineer Maxamed Shawkat ayaa isagu bayaan soo saaray waxa uu ku sheegay in 1 bisha Abriil oo ku beegan 29 Shacbaan ee Jumcada ah inaysan suurtagal ahayn in qofka bini'aadamka ama aaladba lagu arko bisha barakeysan ee Ramadaan, ayna taasi aysan suurtagelin, waxayna ka dhignaan doontaa ayuu yiri in la dhammaystiro bisha Shacbaan oo 30 laga dhigo. Waxa uu sidoo kale uu sheegay inay adkaan doonto wadamada caalamka Islaami inay maalinta Jumcada ay arkayaan ama ay arki doonaan bisha barakeysan ee Ramadaan bilashadeedii. Maalinta 3 ku beegan Abriil ee Axadda ah ayaa waxa uu tilmaamay inay noqon doonto maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale iyaguna falagyahanada arrimahaasi bilaha ku takhasusay ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in suurtagal ay noqon doonto in maalinta Sabtida ah la arki doono amaba ay noqon doonto bisha barakeysan ee Ramadaan. Daawadayaal, warbixinada Ramadaanka la xiriira iyo tubinta tooskaba waxaad kala socon doontaan barteena YouTube-ka. Fadlan ku soo biir.